السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا muuqaalkan oo ah muuqaal aan ku sharaxi doono basicska HTML iyo CSS. Si aad u dhisto qaybta hore ee website-ka ee loo yaqaan front-end-ga, waxa laga maarmaan ah in aad aqoon u leedahay basicska ama asaasiga HTML iyo CSS. Barashadooda ma adka, qof walba ayaa baran kara. Kaliya waxaad u baahan tahay si aad u barato in aad taqaano sida loo isticmaalo ama loo shido computerka isla markaana loo baqtiyo software-na loogu install gareeyo. HTML iyo CSS labaduba ma aha programming language. HTML waxa loo soo gaabiyay Hypertext Markup Language, CSS-tuna waxa loo soo gaabiyay Cascading Style Sheet. haddii aan tusaale keeno, HTML-ku wuxuu website kugu jiraa halka qalfoofta ay bini'aadamka ugu jirto oo waxa isku haya structure-ka iyo qaab dhismeedka website-ka. CSS-tuna waxa weeye waxa lagu qurxiyo muuqaalka guud, waxaana ay website kugu jirtaa halka bini'aadamka skin-ka ama xaragga ugu jiro. si aad u qorto code HTML iyo CSS waxaad u baahan tahay text editor. Text editor-ku waxa weeye deegaanka ama environment-ka lagu qoro code-ka. Muuqaalkan waxaan adeegsan doonaa text editor-ka ugu caansan markay noqoto web development-ga ee la yiraahdo Visual Studio Code ama VS Code. Visual Studio Code qof walba ayaa kala soo degi kara Google-ka isla markaana ku install gareyn kara computerkiisa ama laptop-kiisa. kaliya waxaad booqan kartaa visualstudio.com/download. sida halkan ka muuqata waxaad la soo degi kartaa operating system-ka aad isticmaalayso ka ku shaqeyn kara. haddaad isticmaalayso Windows waxaad la degaysaa Windows-ka ka ku shaqeyn kara. haddii aad isticmaalayso Mac waxaad la degaysaa midka Mac-ga ku shaqeeya. haddii aad isticmaalayso Linux waxaad la degaysaa kan Linux-ka ku shaqeyn kara ama ku shaqeeya. Okay, marka hore aad soo furto waxa laga yaabaa inaan sidan kugu soo muuqan, laakiin tilmaamaha uu ku siin doono barnaamijka ayaad raacaysaa waana ka soo gudbaysaa. Okay, iminka waxaan doonayaa inaan soo furo folder aan hore u sii diyaariyay oo computerkayga meel ka mid ah yaala. si aan folderka u soo furo markaa waxaan tagi karaa file, kadibna waxaan dooran karaa ama aan taaban karaa open folder. sidoo kale waxaan keyboardka taaban karaa Ctrl K iyo O. waxaad tagaysaa folderka halka uu ku yaalay. folderka ayaad dooranaysaa, kadibna waxaad dooranaysaa select folder. Okay, sida halka ka muuqata folderkii markii aan soo furay magaciisa xagga sare ayuu ka soo muuqdaa. sidoo kale waxa igu sii dhex jiray folderkaasi folder kale oo media la yiraahdo. adoo wax laga yaabaa inuu folder kale aanu kugu jirin oo folderka sidaa u samaysay uu ahaa. Okay, imika waxaan samayn doonaa file HTML ah ayaan samayn doonaa. filekaasi ayaan ku dhex qori doonaa code-ka HTML-ka. si aan u sameeyo fileka markaa waxaan tagi karaa calaamadaasi icon fileka ayaan tagi karaa, kadibna markaan taabto magaca fileka ayaan u bixinayaa, deetana sidaasi ayaan file ku samayn karaa. habka labaad aan ku samayn karo waxa weeyaan in aan tago meel cidla inaan right click siiyo kadibna new file aan raacdo. labada hab ayaad ku samayn kartaa. filekan waxaan u bixinayaa index.html. Okay, code-ka ugu horeeya markaan qorayno waxa weeyaan waxaan qoraynaa bracket angle-ka loo yaqaano less-than-ka ayaan qoraynaa, kadibna waxaan qorayaa calaamatul cajiib, kadibna doctype. sida aad aragtaan text editor-ku isaga ay sii caawinaya. isla markaa haddii aad doonayso wax aad doonayso inaad qorto uu text editor-ka kuu soo saaro, kaliya waxaad taaban kartaa enter, keyboard-kaada ayaad enter taaban kartaa ama calaamada tab-ka ayaad taaban kartaa. Okay, code-kan haddaba line-kan imika aan qornay waxa uu browser-ka u sheegayaa waxa weeyaan ama waa waxa browser-ka u sheegayo file-kan inuu yahay HTML, gaar ahaan inuu yahay HTML5 oo ah version-ka ugu dambeeyay. line-kan markaan qorno kadib waxaan u baahanay inaan qorno waxa weeyaan element-ga loo yaqaano HTML. HTML-ka dhexdiisa wax walba waa elements ama waxa loo yaqaano tags. Tags-kuna waxay qormaan open tag iyo close tag. tagyada qaar ayaa waxa weeyaan aan lahayn close tag, kaliya waxay leeyihiin open tag oo waxa loo yaqaanaa kuwaasi self close. waxaas oo dhan qaybaha dambe ayaan ku wada arki doonaa haddii alla yaraa. waxaan qori doonaa HTML iyadoo uu text editor-ka ay caawinayo. ayaan wax qori doonaa HTML, kadibna waxaan taaban doonaa enter. haddaad doonto adigu waad wada qori kartaa calaamada less-than-ka ayaad ka bilaabaysaa HTML oo tagga magaciisa ah, greater than ayaad kusoo xiraysaa, kadibna less-than calaamada /ka tagga magaciisii iyo calaamada greater than-ka. Okay, enter aan siiyo. marka HTML tag waa halka aan ku qori doono code-ka intiisa kale soo hartay ee HTML-ka ayaan ku dhex qori doonaa. tagyada lagu dhex qoray ugu muhiimsan ama inaad ku bilowdo ay tahay waxa weeyaan tagga loo yaqaano head-ka. marka la head ayaan qori doonaa enter. head tagga marka waxa lagu qoraa waxyaabaha background-ka ka socda. waxaan ugu muhiimsan tagga loo yaqaano title-ka marka waxa weeyaan waxaan ku qorayaa magaca website-ka. waan isla eegi doonaa markaan soo furno. tusaale waxaan qori doonaa agane.com.
okay taagaasi markaa headka loo yaqaano waxa ugu muhiimsan lagu dhex qoro waxa weeyaan title taaga iyo meta tag wax loo yaqaano marka dambe aan isla eegi doono sidoo kale taaga labaad oo ay tahay inaad html kaas ku dhex qortaa waxa weeyaan taaga loo yaqaano badiga waa kan ugu muhiimsan waxa badiga aan ku dhex qori doonaa waxay ka soo muuqan doonaan browserka wax walba oo userka ama isticmaalaha uu browserka ka arki doono waa waxa weeyaan waxa aan ku dhex qorno body elementiga waxa ku dhex qorno okay inuu tusaalaha ayaan ku qori doonaa tusaalaha assalaamu calaykum oo kale assalaamu calaykum cabdiraxmaan baan raado assalaamu calaykum cabdiraxmaan okay haddaba si aan usoo furno maxay filekan laba hab ayaan usoo furi karnaa habka koowaad oo ah in aan tagno fileka folderkii aan samaysanay halka computerka ku yaalay in aan tagno aan soo furno kadibna filekaasi double click aan siino filekaasi markaa aad siiso double click markaad siiso wuxuu kusoo furi doonaa web browserka ama browserka defaultiga kuwa ah haddii aad Firefox isticmaalaysay haddaad Chrome isticmaalaysay ama Safari kulba ka kuwa ah maxay defaultiga ayuu kusoo furi doonaa habka labaad oo ah habka aan isticmaali doono oo ah habka ugu wanaagsan waxa weeyaan haddii aad ku cusub tahay text editorka waxaad tagi doontaa calaamada loo yaqaan extensionska kadibna search barka waxaad ku qori doontaa live server markaad ku qorto kan ugu horeeya ayaa taaban doontaa kadibna sidaas ayuu usoo muuqan doonaa live serverka anuu imika uu igu install gareysan yahay laakiin adiga waxa laga yaabaa inuu kuu soo dhigo calaamada install inuu halka kuu soo dhigo ama button yar oo install inuu kuu soo dhigo waad ku install gareyn doontaa isla markaasna waxaa muhiim ah in uu kuu furan yahay internetka markaad ku install gareyso scanner ayuu qaadan doonaa waxaad ku soo noqonaysaa filekan ayaad ku soo noqonaysaa kadibna waxaad siinaysaa right click meel ka mid ah ayaad right click siinaysaa kadibna waxaad oranaysaa open live server soo aragtaan qoraalkan waa qoraalkii markii aan ku dhex qornay body elementiga aan ku dhex qornay waa taan idin lahaa qoraalka aad ku dhex qorto body elementiga oo waxa browserka laga dhex arki doono ama userka uu arki doono okay halka title elementiga qoraalka aan ku dhex qoray uu ka soo muuqdo taagka xagiisa sare oo website-ka magaciisa ama title-kiisa ah intan ayaa marka ugu horeysa marka ugu muhiimsan haddaba waxaan sameyn doonaa iyadoo uu caawinayo text editorka ayaan codekan waxaan tusi doonaa hab fudud oo aad ku generate gareyn karto codekan hab fudud oo aadan u baahnayn codeka oo qorto markaasi aan idin tuso waan masixi doonaa intan kadib waxaan qori doonaa calaamada cajiibka ayaan qori doonaa calaamada cajiibka markaan qoro iyadoo aadan wax kale qorin ama wax kale aadan raacin ayadoo xataa taaban doontaa enter ama tab keyboardkaada ayaad taaban doontaa okay codekii hore marka hore aan wada qornay ayuu imika noo generate gareeyay si automatic ah codekan marka waxaa loo yaqaanaa document object model ama DOM ayaa loo yaqaanaa waxyaabaha marka ku cusub waxaa kamid ah meta tag qaybaha advanced-ga HTML-ka iyo CSS-ka ayaad ku arki doontaa sidoo kale waxaa ku cusub attribute-ka wax ugu badan ee aan arki doono aan isticmaali doono attribute-ka waxaa lagu dhex qoraa open tag ayaa lagu dhex qoraa waanaga niri element walba wuxuu leeyahay close tag iyo open tag inuu tusaale HTML-ka open tag iyo close tag ayuu leeyahay marka attribute-ka waxaa lagu dhex qoraa open tag ayaa lagu dhex qoraa halkan haddaan kala fidiyo mar kale waa ka attribute-ku arki doonaa marka qaybaha dambe ayaan ku arki doonaa imanka tusaale haddaan mar kale qoraal tusaalaha badiga dhexdiisa aan qoro elementiga badiga dhexdiisa haddaan ku dhex qoro tusaale assalaamu calaykum baan raado browserka aan ku noqdo waa ka si automatic ayuu isku refresh gareeyay markasta marka faa'iidada uu leeyahay live serverku marka waxa weeyaan markasta oo aan isbedel ku sameeyno codekeena ama aan wax ka bedel ku sameeyno hadii uu ku soo furnaa browserka si automatic ah ayuu browserka isku refresh gareyn doonaa waa hadii aan live server ku soo furnay marka live serverku faa'iidada ugu badan ama uu leeyahay waxa weeyaan intaas weey muuqaalkan maanta intaas ayaan ku soo koobayaa intaan isku arkayno taxanaha barashada HTML iyo CSS iyo muuqaalka xiga intaan isku arkayno waxaan idin kaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh